kadib markii maanta ergada ka qayb galaysa shirka maamul samaynta Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ee ka socda magaalada Jowhar ay u codeeyeen in caasimadda maamul goboleedka laga dhigo magaalada Jowhar ayaa waxa arintan wax laga xumaado ku tilmaamay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada Beledweyne Bashiir Xuseen Dhuur oo haddana gudoomiyaha bulshada rayidka ee gobolka Hiiraan laga wada Jowhar ayaa waxaan ugu soo qortay in maartay looyinka xagga joogay yiraahdeen maanta caasimadda Jowhar qaanuuniyan sida qaanuunku uu qabo marka horena inuu degaraato ku magacaabo madaxweyne caasimadda qalad ahayd waan haddana waxay sameynayaan qalad ergo meeshaas isugu tagtay oo dhaqan martashe oo odayaal dhaqan iyo bulsho reer midna ma jirin waxay ahayd arrin siyaasadeed ay ka dambayso Soomaalida marka waxa tiraahdo waa dhaqankeeda leedahay waa soo weyn qof soo weyn aan orodno marka mid la waxa meesha ka soo baxay waa wax la garan karay kulli tabanaga reeriyaan aan taladeena waa ugaasyada ugaasyaduna waxa uu ku shaqeynayaan waa rabitaanka shacabkooda khayr iyo xaq iyo qaanuunka dadka u qoran inta waafaqsan inuu shacabkeenu waa tashtay waxay wadaan howlihii Hiiraan weyn ugaasyaduna waxay hore ugu baaqeen arrimihi amaarta dib u heshiisiinta sagaal bilood bishii tobnaad lagu jiraa cid ka jawaabta ma jirin waxa dhamo loo digay dan lahaay loo orday waxay wax laga sameeyo wixii la sameeyo ayaa marka waxa u baahan qaanuuniyan waxay noqon karto marka diilada Jowhar caasimadii ku darsada madaxweynaha ku darsada wax walba waxay u baahan tahay qaanuunka la fujiyo waxay u baahan tahay in labada shacab iyo labada dad ay ku wada shaqeeyaan duubka dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa 20kii bishii September ku dhawaaqay in la dhisayo maamul goboleed u gaar ah gobolka Hiiraan kaas oo hadda qabanqaabadiisa ay ka socoto magaalada Beledweyne shii dhaaftay September 20keedii ugaasyada go'aan waxay qaateen reer Hiiraan inay tashtaan ayoodana ka tashtaan taas ayaan wadnaa waana loo saaray gudigeedii wixii qaanuunkeeda ergadeedana waa la qaybsanayaa kulli waxaan ka soo bixi doonaa waxa reer Hiiraan u dheeyay ama inta badan ay u dhamaan doonaan hadii ay beedna taas oo noqon doonta ama wajihi doonta rabitaanka reer Hiiraan iyo dulmkii lagu hayay 50 sano iyo xuquuqdoodii maartay lagu dulsiyay waana heli doonaan been go'aankan ka soo baxay ergada ka qayb galaysa shirka Jowhar ee lagu bedelay caasimadda maamul goboleedka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaan loogeyn qaabka uu dhaqan gali doonto maadaama gureegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud caasimadda labada gobol looga dhigay magaalada Buulaburje ee gobolka Hiiraan waxaana arrintan ay sii xoojinaysaa khilaafka ka taagan dhismaha dawlad goboleedka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe Maxamed Cabdi Sanay telefishinka caalamiga ee bulsho Beledweyne